nimankan marka ugu horreysay waa nimankii maxaabiista lagu soo qabtay ilaa maalintiina halkan aynu ku haynay marka waxaanu xorriyadooda siinay marka saacadan laga bilaabo waxaanu siinayna waxa weeye waa dad la soo khalday oo masaakiina dad baa soo khalday marka annagu dee haddii aanu qabanay xaq baanu u leenahay inaanu sii dayno ilaalino sharaftooda ilaalino iyagoo nabad qabaanu sii daynay cid kastana waxaanu ka codsanay sidaas oo kale maxaabiista in loo galo oo loo hagaajiyo oo loo sii daayo xorriyadooda la siiyo maantana maalin walba taasoo kala joogto horta maanta iyaga waxay isku beegeen maalintii xasuuq dhacay ee Kalshaale waa maalinteedii maalin walbana duulimaadkaasaa jooga maalin walba raasaa dadka loo qabanaya maalin walba saasaa dadka loo xasuuqaya waxaanu leenahay dadka la xasuuqayo xasuuqa laga daayo dadka la leeyahay shacabka leynta laga daayo kii la qabtana sidaa loo dhaqaaleeyo anigu hadalka intaasaan imika ka gaaray watahay maxaabiistani ma waxa jiray maxaabiis kale lagu soo bedelanay ma jirto oo deegaanka laba maxaabiis oo kale ayana leeyahay waa la soo deenayaa oo la doonayaa in la isku soo bedelo oo yana xagga laga soo deenayo oo la leeyahay maanta hal isdhaafsado kuwaana way jiraan halkee marka lagu kala wareegay meesha la yiraahdo guumeys yaa lagu kala bedelayaa la isugu tagayaa ilaa maanta qoladii kale barcay imika laga soo qaaday qoladan halka waa taymka laga qaaday laga dareeriyay arrintu sidaa weey markaasi yaa wada kuwaas oo soo kaxeeyay maamulka mise dadka loo dhexdhexaad maamulka wada wasiirka arrimaha gudaha ku xigeenkiisa ee hawsha hawlka galay isaga cid soo dhiibay kuwaasa wada وقت دينا عكلة بالوحدة وحنتا يعني هذا سلجانس كم كفاية سنة حالته جيد يا دجالة طبعا وحاولي موقتين أرنتي ولا سيدو تاجنتها أرنتاس بالوحدة يكورن كده أرنتاس سيدي وين حبيس كم بدلين سيد بالله سهر فليا حبد بالله سهر يستا ولا بس سيد أغسله بالله قبل غيان ورر يا دجالة يسوق هذا نمكي سوق هذا شيء وقت محا سوء العلمية بالله كرايم كمدة صدق سنة كله ويمكن دجال كانت مدة مربص ولا لابنا يو ورر سوق هذا يو يعني أرنتني محيسل كويس سبا واحد لك كويس سبان قبانو imanka dal beelay dadkan dal beelay koodiba mala ku filaan waado mala kari doonayaan inay ku tarsadaan helina maaya waan gar saasaan qorsheyn idinka maxay marka dadkan deegaanka buuxda ama guud ahaan beesha lagu nabad baan ku dhawaaqin hadaan weyno waxbaan iska celin waan garta ugu dambeyntii xaaladaheena idinka iyo jidiina dad isku kalsoonida nasaataydin aad iyo aad baan u bixinaa waa fiicanahay aad baan u fiicnaa ilaahna waa ku kalsoonahay waana isumnaa inaan wax iska rabin باقي ugu dambeeyay maxaa la halkan ka jeedin hada Soomaaliya jeedin hada ama dadka aan baaqan jeedin waxa way dadku wada islaam waana dad tola xoogna waxba kuma kala qaadi karo halaga daayo xoog iyo dhibaatada dadku wuxuu wada hadal wuxuu isku yeeli karana isku yeeli wuxuu isku diidan karana isku diida ha wada hadal laakiin xabada hal jooji anu nimanka Soomaaliya insaasan ku leeyahay soo qamaamay hadii marka tala way maxaa wixii dimanaya imanaya wixii ma jiray baa imanaya wixii ma jiray baa imanaya oo ah يواد كرنسا هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركب روح السلام يا بحر الصحافة هل كنا قاعدين صحافة مركب لبعضنا وحان كهذا يا محابيس هل كنا نكسر ديبني يعني حتى الوقت كان حاضر كان محابيس اللي هو قبتي دجالك كركودي يأفكودي كور رمي الدونان لكن هذا نوجد جدبو arrimaha meesha yaala iska horimaadka Somaliland iyo beeshan urbahante waxa weeye sababta aan nimankii aanu ku qabqabanay aanu u soo deynay waxay ahayd dad masaakiin ah maskaxda laga haysto wareysigooda TV-ga aad ka arki doontaan sida su'aalaha aanu u weydiinay waxa ay kaga jawaabeen aad moodo inaanay qalbiga iyo maskaxda toona aanay xor ka ahayn baa nimanka ka muuqday markaanu aragnay dad la qalday inay yihiin markaanu aragnay inaanay xog baahayno ay xog mooga ka ahaayeen waxa ay u soconayeen sida la atligeed baanu anagu iska fogeynay qaladkii lagu soo falay inaanu iyaga ku soo ambixino ayaanu iska fogeynay aanu qalad labaad ka galno naftooda imika iyo waqtigan xaadirka aanu ku soo tiriyay واتهي باقي ugu dambeeya baaqayga ugu dambeeya waxaanu leenahay maanta oo ah maalintii Kalshaale la weeraray maalinteedii oo sanad guuradeedii xasuuqi ka dhacay Kalshaale ay tahay waxaanu dadka u sheegaynaa caalamka waxaan u sheegaynaa iyo islaamka iyo Soomaali weyn
arrintaasi in ay tahay arrin had iyo goor aan laga tanaasulin oo soo noqnoqoto ay caadaysteen beelaha isaaq duulaanka joogtada ay ku soo qaadayaan beelaha bariga harti aan idhaahdaba kala reebi maayo buuhoodle waxaan kaloo intaa ku darayaa haddaad isii weydiisay weriye talabixintii dambe ee aad tiri gebageba ka dhig annagu dad islaam baanu nahay naftooda dooni mayno maalkooda dooni mayno cirdigooda dooni mayno gurigooda dooni mayno maalkooda iyo gurigooda iyo deegaankooda iyo dhulkooda midna ma rabno waxaannu rabnaa inay noo nabadgeliyaan deegaankayaga iyo dadkayaga iyo naftayada iyo maalkayaga iyo barta aannu ku noolahay qofna qof ma qasbo qabiil ma qasbo waa maxamed siyaad barre dawladdiisiyo haykal leh oo dastuur leh oo ay madaxweyne ku-xigeenka leeyihiin isaaq bay diideen oo ka dagaalameen oo ay u cuntami weyday maanta oo aan dawlad la haysan oo aan dastuur jirin inna lagu sandulleeyo annaga oo la yidhaahdo isaaq baad wax la leedahay waad ku sandulaysan tahay arrintaasi waa arrin aan la qaadanayn waa arrin aan naga dhaadhacayn waa arrin la isku dilo waa arrin fool xun waa arrin haddii miyir qablagaga wadhadi aannu xaal ka leenahay run ahaantii